السلام عليكم وأنا رملة كسو دوادا برنامج كفاء عصب. السلام عليكم magacaygu waa Firdawso. السلام عليكم magacaygu waa Cumar. وأنا تيم كبرنامج كفاء عصب كسو دوادا برنامجك. warkan waxaa ku soo qaadan doonaa banooniga ay caruurta laamiga ay ku ciyaara ee dhibaatka ay imaan karto doorashadii oo socota iyo tiyaatarkoo dib loo furay. soo dhawaada barnaamijka Kafaac Cusub aniga oo Cumar soo jeedin ku ciyaaraya caruur degan halkan kuwaas oo u kala baxay laba koox. laakiin inta ay soo bandhigeen waxay u tus doonaa qaabka ay u ciyaarayaan dhibaatooyinka ay qabaan halka ay kubadda ay ku ciyaarayaan. waxay ku kulfayna kubadda halkan ku ciyaartaan sentry waxaan ugu kulifay maadaama aan garoon aan haysanin oo maalin walba isticmaan aniga asxaab badan xaafad isla degan garoonkeena halkaas waa naga xeer waxaana dareemaynaa inaan mar walba shirka gal karno waxyaabo badan meeshaan waadiyaa joogo inta waadiyaa mar walba waa nala buriyaa taasoo jirta arrin ma aqaantaa qof oo saaxiibkaaga ah ama aad istaqaanin ama mutigiisa arkay oo halkan ninka kubad ku ciyaaraysa oo shirkada camal aada jira ilaa iyo dhowr qof ay ahaayeen inta aniga ku ciyaarayna banooni dad badan ah wax ku gaareen anayna laamiya waxaan u kalifay garoon la'aan iyo lacagta garoomada lagu jaar aanan awoodin intaas aan u kalifay marka ma caafimaadey ama shida wax ku gaar soo period mise وكسوك ما يعدوا كسوك انت aqaan way kasoo tagtay laakiin ka badan way ku dhacay aniga hadii intaas ka dhigna inna mu qabno ilaa hadda baabuurta leen oo daran insha Allah wali waxa ku siidnaa barnaamij Kafaac Cusub magacaaga waqtiga meesha inay khatar badan ay kiibaa ku man doonaysan inuu meesha ma ka fiicanaysan Ajiirka in kasta magacaaga Cabdildiif وجعلنا هدينا نقطة عيالها أزوين ما دامت بدأ حقا أكو عيال مدران كان أكو عيال إسلامي. ها يعني هيك رجينا مستقبل كعملنا نقطة. تراش ريانو ونولادو. ما عاد. محمد. وجعلنا هدينا نقطة عيالها أزوين. يعني هيك صالح. صالح. هذا هو طيب. سودي العمل أنا كنت ما جعلها مستقبلنا هرمر جارو هذا هلاك سالوك بدنا جارا ربا سدو رالدينيو كنا بديناري لكن ما شاف ديلو ما ميل في عم ميل أمين معها مرك أنا قبلو إسكديلنا باور إسكسو دحكلا باورك المو ديني كرا رفات بدنا نيستو لكن صاروا سوق في عنا كاروا بس إنت كذا sidaan ognahay dhibaatooyin fara badan ay laamiga qabnaa gaariyaasha iyo iman karaan marka waxaan dalban lahayn in oo garoomo fiican loo furo garoonka ay hadda dhalinyarada aad baa loogu xiray marka waxaan dalban dhalinyaro garoonka soo jeeda laami weeyaan marka garoon fiican in loo sameeyo kubad si fiican loo geelo هاي وعد سلامي برنامج كفاء عصب ما أنتم حالين أقرن دونا
wararka tiyaatarka qaranka. Ma og tahay in muddo sanado kadib dib loo furay tiyaatarka qaranka? tiyaatarku wuxuu baahan yahay dhalinyarada daawanaysa filimaanta iyo riwaayadaha. Muddo sanado kadib waxaa noo suurta gashay inaan daawano filimaanta ugu horeeyay oo soo bandhigeen oo lagu soo bandhigay tiyaatarka qaranka, kuwaas oo soo bandhigeen gabdho dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed. haddaba daawade waxaad fursad u haystaa inaad timaado tiyaatarka qaranka maadaama ay tahay meel bulshada oo dhan ay ka wada dhaxayso. qiimaha tiyaatarka lagu galayo ma ahan mid sidaas u badan. haddii aad jeceshahay inaad daawato filimaanta iyo riwaayadaha kaalo imaaw xarunta tiyaatarka qaranka. Bye. maanta waxaa xubinta maalinteeda kusoo qaadan doonaa maa'ida. maa'ida waxay ku fiican tahay cunto karista, cilaansaarka iyo waxyaalo kale oo muhiim ah. waan salaame magacayga waa maada cali kusoo dhawaada maalinteedii meesha aan jiifto iyo minta guri jooga waxaa qabto shaqada kolkayga kale aniga inta jiiftaa walaashay inta jiiftaa soo intee walaashay muntada hadda inta ay jiiftaa waxaa meel kale wax ka akhristo siritaan aniga jiifto meel kale waxaa wax ka akhristo marka waxaa aniga la soo ciyaartaas hadda nisan sabax
magacayga waa Maxamed Aadan Xirsi waxaan jiraa 11 waxaan dhigtaa iskuulka lagu magacaabo Mambaale Cuyum fasalkaana ahaa fasalka 5aad iskuulka waxaa ahayaa subaxdii 12 waxaan ka imaadaan 10 saac intaan ka hor aadano waa soo kacaa hooyadii ayaa howl u qabtaa marka howl u qabto canjeerada u duwaa daadka u kala hagaajiya alaabta u dhaqaa wax kasta saxta u toosiyaa guriyaasha u soo xaaqaa intaas marka ka sameeyana waa baxaa miikaan akhristaa waxbarashadii kitaabka casharka akhristan kadib soo diyaarina iskuulka aadaa waa is qaataa waa tukadaa salaad markaa tukado kadibna waa soo baxaa markaa salaad tukado kadib waa soo baxaa markaa soo baxana hooyadii hoos markaa u qabtaa baxaa iskuulka aadaa iskuulka ka imaadana oo ka imaada hawsha u qabana haddana waxaa jeclahay cilaan inaan iska sawiro waxaa qaataa 8 maago waxay kala yihiin English, tarbiyo, Carabi, technology, cilmiga bulshada, saynis iyo xisaab. Ana iskuulka joogana gabadhaas aan qalin iga xaday. Ana waxaan gacanta ka qaniinay. Asana macalinka ugu soo jeestane macalinka wuxuu kala celiyay ayuu u saakay ooy. Gabar igu weyn kadib ayaan waan dacwad iskuulka waa tuma san oo bas dhufta ayaan soo dhufta macalimiintu saaxiibsiiyeen ay caruur waxaan sheekana hal sheeko waxaa jiray guduud iyo cagaar maanba gabar naag intee hooyo gabar dhashay gabadha caasiida ku noqotay caasiimka gabadha ku noqotay gabadha waxay dhahay ariga iyo raac balaayaha ku dhaqmin ku dhahnay kadib gabadha ari markay raacdana ayay jikmadaysan naaga u maataxdaa geedkaas gadaashiisana waxay aray aygan may uga fiiri haye dhaad markay aad naagtii guduud isku bashay nin kala imaada ila cagaar ku daacana kadib naagtii gabadha ka dhimatay naagta gabar kale dhashay oo baariyad ah wax kasta u sameyn jirta kadib waxay dhaad gabadheedii arigan ilaahay balaam ku dhacdo ayay dhaad gabadhii baxda naagta ama dhahda haddana meeshii way fiirne kadib labadii ayaga kusoo boodayaan waxdaana kadib waxaa kala ducada hooyadeeduna adoo safalta maasa labada boqorta ay goona gabadhina saas ku badbaadey wadaan haddana waxaa soo gaalgooyay hadda iskuulka imaad waxaa rabaa haddana inaa casheeyo bye bye. xubinteena akhlaaq wanaag maanta waxaan kusoo qaadan doonaa booqasho aan ku tagnay iskuulka Yaasiin Cismaan nala socda. kusoo dhawo barnaamijka Qaasub waa ku dhawahay magaca anigoo ah magacayga Misaal Farax oo meeshaan kasoo jeedin doono su'aalo jawaab waa mahadsan tahay waxaa ii sheegtay sida lagu noqdo qof akhlaaq wanaagsan macnaha qof fiican sida lagu noqon karaa hadda aniga qof fiican waxaan ku noqon karaa maanta aniga dabeecadda ka soo qaado waan xunahay dabeecadda waxaan haystaa saaxiibay jecel oo aan haystaa hadda maanta waxaa ii maatay saaxiibteeda waxay dhahday abay dabeecadan iska dhaaf dabeecadan xumi waa lagu nici karaa dadka fasalkoodana waa kugu nici karaan dabeecadan iska dhaaf maanta kali waaya say ka soo qaad waaya say maanta kale waa soo laabtay foodanka kiciyo fasalka macalinka imaaday iskuulka la iga buriyay iskuulka la tagay saaxiibo kale ay imaaday waxay dhahdeen dabeecada iska dhaaf
markaas waxaan is arkay anigoo dabeecaddeeda aad u xun tahay oo macallimiintii dhan iiga sheeganayaan kadib waxaa dhahaysa asxaabteyda aniga fasal iskuulla badan ama fasal badan waan kasoo kiciyo foodo laakiin maanta kaliya ii dulqaata maalin kale foodo kamida kicinaayo gabadhi ugu dambeysa ii maada waxay dhahay foodada iska daa idhahdeen dadka o dhan way kuu nacay macallimiintii maamulaha kasoo sheegan way dhaheen kadib aniga waan qaatay talo fiican ay iska saadheen dad badan dadkii dhan waa u tagay waana soo raadiyey sasaab dabeecad fiican ku yeeshay maasha allah ilaaha ku deysto marka dadka oo xunxun waxaa ku waaniyahay inay dabeecadda iska daayaan dabeecad maan wax kalena iyo akhlaaqda xun iyo si u fudud yihiin salaada qofka waxaa lagu baahan yahay inuu sameeyo ilaahaga intuu kuu abuurto adiga inaan cibaado ka sameyno inaan cibaado sameyno oo salaadeena aad joogteeno cibaadada ilaahay mar walba inaad joogteeno ama meelaha madrasada oo allah masaajidada oo kale inaan tagno aan wax kasoo akhrisano aan salaad kasoo tagno ilaahay wuxuu nabi maxamed wuxuu nagu waajibiyey sallallahu alayhi wasallam aan kasoo tagno waajib kusoo dhawo barnaamijka faacso waa ku dhawahay magacaa aniga magaceeda xamdi عندي عايشة تصير أخلاق ونحسن قف أخلاق ونحسن حلوين الطاقة قف متوازن أو قدر إنه أو قفته أو أخلاق ونحسن أو إله كعب صدق أو قف أو دواتسن أو عابية سالو نقطة قف ونحسن ضدك جد كمراي أو ويالك إيه محاقصة مالهد هذا أركي لو قرقالي لها جد كويسين هاد هي والدك قرق مركز جوتي waxay ku dirsadaan maxaa sameeyay ما وقفت waxay dirsadaan mobilka isku tiyo ya mobil dhamay ma sha Allah waxa isha salaad inta ka taa sunta dadka xun xasheed dadka xun wax wanaagsan kadaaf wax fiican soo diira hay saaxiibada iskoolka isku tiyo saaxiibada iskoolka saaxiibada dad dad qaarkood oo xun diyaa dad fiican ku jiraan dadka xun maxaa dhihi lahayd dadka waxaa ku waani lahaa in xamaas ka dhaafaan ee dad wanaagsan noqdaan kusoo dhawo barnaamijka faacso barnaamijka waa ku dhawahay magacaa aayatullah xuseen maxamed waxaa ii sheegay sida lagu noqdo qof akhlaaq wanaagsan leh ama qof fiican waxyaabaha wanaagsan inaad samaysid waxaa ka mid ah waxyaabaha wanaagsan inaad macalinkaada diin asxaabtaada diin waalidkaada diin والدك wuxuu ku diray inaad samaysid mar walba ay maxaa kale ilmaha ka yar iyo dadka ka waaweyn maxaa sameyn lahayd markii wax xumka ku sameeyaan lacag dadkii waaweyn inay islaamo ilmaha yar inaan dilin oo iska fiiriyaan dadka hore maxaa u sheegi lahayd inay dilaan iska dhaafaan oo ilmaha saxaabtooda isla dilaan ay dadka oo saaxiibada aad tihiin dad xun ma jiro dad xun ma jiraan aan dad xun ma arkin laakiin hal wiil saaxiibkeedu hal qof bisa saaxiib la tahay ilaahay ku jirta ilmaha carruurta shaqo u shaqeeya wiil saaxiibku waa si socon aniga si sooracan ama ka buunkii wadada soo socon aniga habeen soo busay waa soo meel ku kufaan eego indal inay jecel أنا نيكي إيجا دل نيكي أي واحد يصاب بسرعة باور كذا كل هذا مو بحر وصاب بحر يقول يا سكينات وتوش إيجا ممكن نرى ما يدا هذا إيجار سعيد كي يخلي أنا إيجار كاو تلي إيجار كأسبتال كاوراي وصلنا هاي حيوان أكعب ستجرا لو شغل يوم إيجا نعتها هذا بسيطة هو أصلاً kusoo dhawo barnaamijka faacso magacaa Abdullahi waxaa ii sheegtaa sida lagu noqdo qof akhlaaq wanaagsan ama qof fiican qofka fiican mar walba wuxuu jecel yahay inuu isjoojiyo maalin walba inuu isnadiifiyo inuu soo qabaysto inuu jeermiska waxa iska ilaaliyo waxa wasakh badan qofkaas mar walba nadiif noqday qof oo akhlaaq wanaagsan noqaa quraanka وفي دتك في عن بدتك حمد قرآن قالوا كبرها لا قرآن كريم إلهي أنا فضلك إلهي حنوخ مقفنا صح والله أنت إيشك حيوان أو أكعبت مجرى أما أجعشها الحيوان بس أكعبتها وأنا إيه حيوان أجعشها مجرى ماشي ما يوفى
yaanyuurta jeceshahay maxaa ku jeclaatay yaanyuurta مسكين واحد أخلاق ونفسهم جاي إيه ده بحسيس لا ترى ده بحديد أنا بحب إلى السفر ay iskoolka markasta soo aadaan mise marmara u gambisa مروة البنسوة هذا سكول weliga iskoolka dagaal ma ku gashay ألماني بس hal maalin dagaalkiisa waana ka qoomaysa Ay, okay, busada. waxaa noogu sheekaysaa hal sheeko oo kugu dhacday taariikh ama qosol leh أنا هذا بعد أنا واحد من لبتها وحلي هذه يعني ما أرضيها دابدي ما يليده وهو صبري وأسكلافي ما نقول وهو برتي لكن هذا أخليه يا خوا لكن ما نقول إنه تاسي لعن وان خوا هلي بني أصحابتي الإيوانية inaa wax meel intaa dhigta aa ugu tagtay qaadato ما له هذا أخليه يا خوا هلي marka بني tegaysa roo qaadanay waa waasantahay waani salaamnay ogeysiis ku socoto carruurta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ma daawataa barnaamijka Faac Cusub ee telefishinka qaranka doonaysa inaad ka qayb qaadato soo saaridda barnaamijka Faac Cusub haddii ay jawaabtaada haa tahay lagu soo xiriir WhatsApp-ka halkan ku qoran muuqaalo aad adiga iska soo duubtay kuwo farxad iyo reereen ka muuqato iyo sheekooyinba toddobaad kasta waxaan barnaamijkan ku soo qaadan doonaa muuqaalo nolol soo dir ku ugu fiican ma jirtaa waxaad ku fiican tahay ama aad xariif ku tahay sida kubadda cagta kubadda kolayga kalfootada iyo wixii lamid ah haddii jawaabtaadu haa tahay noogu soo dir WhatsApp-ka halkan ku qoran muuqaalo aad adiga iska soo duubtay noocee doonaba ha ahaadaan toddobaad kasta waxa aan barnaamij ku soo qaadan doonaa muuqaalo nolol soo diro kuwa ugu fiican waa anagoo ah tiimka barnaamijka Faac Cusub oo isku duwan waxaa idinkaga tagaynaa sidaas iyo bye bye